26 iyo moranka ka taagan moranka ka taaganna ciyaar ma oo waxa weeye talaysku adhow ta lagu kala baxayo adeega danu steegsano reer Somaliland ta lagu kala baxayo hadhow ee aynu garna ku helayno waa 26 June ta lagu kala baxayo way ta laysku haystaa waa iyada weey 18 May la isku haysto 18 May argument ay bixinayaan reer Muqdisho iyo Soomaali weyn dadka gacanta ku haya iyagu waxay ku leeyihiin 18 May waxa weeye maalin nin adag oo dictator la dagaalamay civil war ba dhacay dabeetana civil war ku adduunyada wuu ka dhacaa waa laga heshiin karaa laakiin 26 June hadii laga qaato way adag tahay inaad taariikhdaada macnayso way adag tahay way halkaas aad ku xidhmaysaa waxaad ku xidhmaysaa dood ah dictator baa wadanka haystay civil war baa la dhacay dad badan baa ku dhintay nooc walba way ku dhinteen dictatorkiina wuu tagay daan ka heshino de wixii dictatorku uu sameeyana aynu dib u dhayno yaa lagu odhanaya waa dood adag wey haddaad halkaa gasho laakiin haddaad gasho hoos gasho 26 June marankaasi ma iman karayo soo adegarmaysa marka inaynu aad uga fikirno weeye qiimaha iyo faa'iidada ay leedahay taariikhiyan iyo waqtiga la joogo iyo mustaqbalka ay leedahay 26 June waa xididka ugu dheer ee Somaliland ay sheegan karto oo cidna dafiri karin adduunyadana haddaad doonaysa inaad la doodo oo tidaado waxaanu u doonaynaa oo nu xaq u leenahay in la aqoonsado inuu nahay dad jira oo kursi xaqa ku leh adduunyada meel walba halka markay doodu bilaabanto waxa lagu oranayay taariikhdaada ka war 26 June marka haddaad tidaahdo waxa weeye maalintaanu dhalanay de recordkii wuxuu yaalaa colonial office I saw it ayuu yaala 18 May record yaala colonial office ma jiro adeegad soo adeegarmis halkaas uu jiro kolka ayaynan guusha iska fogeynin labada maalmood waa laba maalmood oo qiimo weyn labaduba ay leeyihiin in la isku hayo waa important midna midda kale ma dafiri karayso loomana baahna in la dafiro laakiin halkaynu ka bilaabanay ee waagu ka bariyay waxa weeye 26 June 1960 dooda aynu adduunyada la hortagnana waa inay taa noqotaa waayo taasi waa la garanaya taariikhdeedii baa taala documentskeegii baa yaala hadda baleegad waxyaabaha anigu aan qabo inay u raagtay in layna garto taasaa ka mid ah waayo halkii baabuurka la dhigaya maynaan dhigin saad garmays marka adduunyada kale kuma soo jeedsanayso waa lagu qosli waa lisanka dhaaf ko civil wars adduunyada way ka dhacday laakiin wadan jiri jiray oo calan qaatay oo ay taalo documentskii uu ku xiroobay adduunyaduna ay u shaabadaysay 26 June loo shaabaday wadamo badanna ay garteen haddaad halkaa dib ugu noqoto la soo baxdo waa ay adkaanaysaa cida ka hor imanaysaa way jabaysaa taasi waa kow 26 June qiimaha kale ay leedahay waxa weeye isku haynta Somaliland isku haynteeda Somaliland dadkayga sida la iskugu haynayo 26 June unbaa isku hayn karta ilaa waa inaynu runta ku wada hadalno haddii taariikhda wadanku ay sii jirayso sii dheeraanayso oo day noqonayso mid raagto oo abadi noqoto ay noqoto waa in dadkii reer Somaliland la isku haya sidee la iskugu haynaya bay noqonayso halkay ka bilaabmaysaa in la isku hayo Somaliland dadkeygii la isku hayo jamhuuriyaddaas ay noqoto mid gunteedu ay dheer tahay jirideeduna ay adag tahay waa 26 June anu dad badan baan la sheekaystaa oo reer Somaliland nooc walba ah ya oo reer galbeeduna aan ahaynte ya aan ahaynte soo aad garmayst ya aan ahayn oo aan abtiyaasha iyo adeeradeenu aan ahayn iyo habaryaraha iyo eedadeedu aan ahayn ayaan la sheekaysta ya Samarooniya isaaqun ma dadkan la sheekaysta let me put it bluntly soo aad garmayst ma waxay ku oranayaan dadkii kale waxay ku oranayaan Somaliland aynu wada leenahay oo aad asalkii ka mid ah waxay ku oranayaan 26 June haddaydan jirintee oonay ahayn halkii laga taagay anna waan maqannahay soo adeegar waan maqannahay bay ku orneen sida iyaga dadka bariga degan ee reer Somaliland ya dhulbaantiye warsangeli ugu horeeyaan ay ku soo xerogarayaan waxa weeye 26 June ay ku soo xerogalayaan waa siyaasadda dhabta ah dadweyid ee ballaaran
كل كال أدكينتا إيه ودجيرك سوماليلاند هالكي كحلالوبس كدبوبس هو 26 جون إيقونا waxay markaa noqonayaan stakeholders xabaanu ku leenahay taali gala jaamac garaadki waa kii halkan ku saxeexay London ku saxeexay Somaliland inay xorta tan lama tafir kartaadste qofka jooga Bohodle amba badan jooga taa ma tafir karti in fact ma dafraad ma qabbay galinaysaa iyo qiirad dheeraad galinaysaa kolka waxayna hor yaala waxa weeye 26 June iyo 18th May laba maalmood oo qiimo weyn leh sida la isku ogolaysiinayo reer Somaliland oo wali cilmigeegi maynaan gelin after 26 soo hadamaadka maynaan gelin xisaabta in la galo way soo adeegirmis marka isku haynteena dawo weyn bay u tahay aad iyo aad ay u tahay anagu cali khalifa waan ka wada doodnaa arrimaha xamar anagu wada joognaa madaxweynaha wardi Soomaaliya waan ka wada doodnaa hotelkii aan deganay isaguna u deganaa Minneapolis baan iskugu tagnay waan ka wada doodnay dad badan oo caynkaas kuwa ka yar yar sida kuwa kale oo lamid waan la wado garta qaarkeed waa laga helaya soo degamis marka waxaynu u baahanahay siyaasad cusub oo Somalilandaysan oo xididadeedu ay dhaadheer yihiin baynu u baahanahay kala gelinay 18 May lagu lisayo 26 Juun ay qaar ku oranayaan inagu hadaynu gobolada waqooyinahay Somaliland baan 26 Juun xorriyada qaadan 26 Juun xorriyada waxa qaatay maxmiyadii Ingiriisku gumaysanayay ee Somaliland 26 Juun ما هل 26 Juun 59 iyo 26 Juun 69 ما waa 26 Juun 1960 macnaheeduna waxa weeye halkan waxa laga taagay calan buluuki ah oo xidig cad leh oo shan gees leh maalinta Hargeysa waxa ahayd xarunta ummadda Soomaaliyeed bay ahayd maalinta Hargeysa calankii intay qaaday oo ay sii galbisay xamar Hargeysa bilaa shuruud ku tidhi waynu isku darsamaynaa inagoo baadi doonayna saddexdii kale maalintaas ay ahayd maalin Soomaaliyeed bay ahayd maalin Soomaali weyn bay ahayd oo maanta la macnayn maayo 26 Juun maalintaas la macneeyay ninka doonaya inuu macnaheedii bedelaano bedeli kari maayo annaga u soo dhimanay saasi ku oolaysaa saasi ummadan ugu suntanaanaysaa saasi u eeganaysaa 26 Juun dib loo macnayn maayo maalin Soomaaliyeed bay ahayd tuugna ma xado ee barwaaninka dambe